Hello قرابة ما مقلسان واكو مقلين على إسقرا هذه السلامة أحمد علي علوك فايزة علي وينه ولا شيء نادرتي إيكي علي فرتون ملاق سرير سومالي سنيتا أبوكر بارلين قنجب علي نانا حسن إيكي علي كل وادي سلامة يا نادا نادية جلال عويل علي علي علوك كل علي وكبس توبة توفيق أوكي في عندين you are nearly 200 marka waa iska bilaabayaa fartuun malaaq haa xabiibti thank you very much sufyare ayaan cawil cali okay dadka inta ka imaanaya sureer soomaali macaan waa ku salaamay axmed mooge igaarkaygi waa ku salaamay barasho wacan waa ku salaamay kulli waa idin salaamay okay qaraabo haddaa codka maqlaysaan oo anigana ay aragtaan yaa waa mahadsantihiin waan idin hambalyaynayaa inaad ballantii ku imid anigana waa isu hambalyaynayaa oon xataa 1 daqiiqa kusoo daahin qadra jaamac cumar sami geyd baarliin ganjab suldaan axmed mukhtaar kulli waa idin salaamaya miski yuusuf hana jay habeeb waxaan u malaynaa hana jaamac inay halkaas tahay nadiifa yuusuf walaashay waa ku salaamaa كل بعد السلامة عبد السلام محمد صومالي جورناليست مريان رون منى محمد أرمن كل بعد السلامة يا أوكي سلامت هل كسان كل عفايا نتين كلنا بسلامتين alright واحد دوني وقد يجي قلنجو ماي سيستا أمالي حسن أمالي أوكي واحد ربنا هل كان إذن كلا درداربو برنامج كوا برنامج مهمة كرباج حلالة يوحي إسلامكم إلها كشيء جيران ما برنامج fact findings amaba waxyaabaha dhabta ah oo la soo helay soo waxaad ka codsanayaan waaba huba inuu qof walba gaarayo laakiin inuu qof walba oo share gareeyo oo meesha isku share gareeyo xumaan ma aha dambi ma idin kaga imanayo wax dadka lagu karbaashayo oo dadka lagu caayayo oo dadka lagu gaboodfalayo oo dadka lagu waxaynayo oo dadka lagu handadayo oo ilaahay ba una raali ka ahayn oo dhaqanka suuban aanu raali ka ahayn share gareysaan marka please waligay share gareeya qof ma dhaho aniga badanaa ma dhaho please think share gareeya sababtu waxay tahay kow marqaatiya ka noqonaysan hadalkayga laba waxaan ahay qof loo hanjabayo barre hadday wax soo gaaraan marqaati ayaad ka tihiin barnaamijkan oo qof walba oo raba inuu aniga gardarada nala gardareysanayo aniga walaashay garab istaago wuxuu u geynayaa hadba booliiska agtiisa jooga ama sharciga agtiisa jooga marka waxaan idinka codsanaa please share gareeya barnaamijkan iguna kalsoonaada hal xabo oo aflagaada ah kuma jiro haa suldaanka walaalkay share gareeya kulligiin share gareeya and waxa kaloo idinka codsanaa inkastoo messengerka waa tirtiray ha isku soo lugoynina ila soo wacdaan I don't need any interruptions ma raba in la iga farageliyo barnaamijka
telefoonkana waxaan ka xiray bixista soo waa fahamsantihiin sida aan u dhaarsanahay waxaan rabaa inaa ilaahay subxaana wa tacaala intaana barnaamijka bilaabin markhaati uga dhigo barnaamijkan inaanan cidana ku caayayn laakiin aan wax facti finding ah baaritaankii aan ku waday weerarka nalagu haayo aniga iyo walaashay oo markii hore walaashay ku bilowday inaan baaritaan ku wada labo idinka waxbaa ka faa'iidaysaa waxaa uga faa'iidaysaa waxa waaye dadka dhibka dadka ku haaya hadda ayaa fahmaysaan exactly say iskugu xiran yihiin say u wada shaqeeyaan waxa ay yihiin meelaha ay kala joogaan waxaas oo dhan yaa u madaxa seefan loo isu fangareeyaan ilaa howl kastoo la qabanayo lacagay rabtaa maanta haddaan rabo inaan city centerka aado waa inaan bas goosto tareen raaco ama maxay ahayd aan taxi raaco ama baabuurkayga ka haysto okay so that waxaa loo baahan yahay marka idinkana waxaan rabaa inaad dad muslimiina ayaa tihiin oo soomaali ah oo walaalahaya xitaa haddaadan muslim ahayn laakiin aad soomaali tihiin waa igaga filan tahay maxaa yeele anigu diintiina inaan xisaabiyo layma uumin ilaahay baa qofka ka xisaabinaya ama muslim ahaa ama muslim ha ahaane laakiin qof walba oo aniga i dhegaysanaya waxaan rabaa barnaamijkan in aad si quman oo dhagafuran u dhegaysataan idinku kow ka faa'iidaysataan waa hubatan inaad ka faa'iidaysanaysaan fahamtaan dhibka dadka ay ku hayaan burcadda say isugu xiran yihiin qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxa ay qabtaan kor iyo hoos iyo aniga iyo walaashay fawziya sidii aan ugu lug yeelanay iyo why annaga naloo intimidayn garaynaya oo naloogu hanjabaya why dilna loogu hanjabaya haddaan hore idinkugu sheegay cyberbullying handadaada dhinaca baraha maaragta bulshada ama internetka laysku mariyo oo haddana habeen hore markii uu lifeka iga caynaya ninkii xilka lahaa idin iri waxay isu bedeshay sexual harassment no congratulations waxay isku bedeshay terrorism because qof markaad tiraahdo I will kill you I would kill you madaxaan ku dabin lahaa waxba isma dhaanto I will kill you waan ku dili doonaa oo kaa taqalusi doona in I would kill you ingiriisiga ama waan kaa taqalusi lahaa haddaan macnaha awoodo waxba isma dhaanta waa isku mid horta aniga ilaahay baa i dilaaya ilaahay baana i nooleeya cid aan ka baqaayana ma leh barnaamijka horraantiisana intaasan markhaati idinkaga dhigaya cidna ka cabsan maayo maanta kayskan haddaan ku dhinto shahiidad baan ahay shahiiday sababtana aan shahiidad u ahana idinkaa ka dhex daawan doona barnaamijka soo kulligiin ilmo adeerayaal soo dhowaada qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhowaada si fiican u dhegaysta soomaalidu waxay taqaan waxa isbaxbaarso waxay taqaan wax aanay soo baarin waxay taqaan wax ay ka been abuurato waxay taqaan waxay xasil darro la boodo ani ma xasil darro ma xasil darriyo haddaan xasil daranahay howlaha aan qabsaday iyo maanta magaca aan yeeshay bulshada meeshaan kaga jira kagama jiri lahayn magacayga waa u soo sabray dadka waa kasii afeefanaya dadka mar walba ugu dambeeya maaragtay hadda ugu dambeysa gabar ila soo xiriirta oo mar walba ileh sharaftaadaa ku dhaawacmaysa sharaftayda it's not on the masrax sharaftayda maha waxa masrax saaran waa nafsadayda iyo nafsada qoyskayda soo sharaftayda saa u ilaashada anaa aqaana sharaftaydu waa sii kordhaysa haddaan burcadan dadka ka qabto haddaan dhinto iyo haddaan noolahaba haddaan dhinto alla ii taagaysaan maxay ato qabrigaygaad xusaysaan wardigaa ii soo aqrinaysaan haddaan noolahana sharaf baan ku noolaanayaa oo waxaan ahay gabadhii xoraysay dadka abuuska lagu haayo soona afjarta burcadda activitygeeda ma faana aniga mana jixin jixo ma faano mana jixin jixo wixii aan iraahdana وكاد السلطان أحمد مختار بيس حصل قرر ضعف عن صومالي بشكل دقيسة برنامج كود وكان هنتا وحي أن إراهدنا وحان إراهدا أنا إذا به ما قلدم وإلهي بناياتنا نحن وحن لا يبون تدبلس أما weaknesses point بيان لا مال والبحث سليم كما نقول لكن وحنا قف صبدته قفك هديك قرد راتنا أنت ويرتو قال أهوتره قفك دبنا إسقربتك معاذ الله فوجيه فرح ويلي عدو سنتك أو أديركي لحمية أو دلا so that let's start the program برنامج كان وحول لي هاي
file share uu leeyahay zoom uu ku diyaarsan yahay marka please ila socda aniga wajigayga waxaa arki doontaan marka ugu dambeeya barnaamijka magaciisa ingiriisi uu ku qoran yahay barnaamijka dhammaantiis laakiin magaca Soomaali ayaan ku sharxayaa soo daad uma baahan doontaan inaad ingiriisiga ku wareertaan marka shaashada haddaad ingiriisi aqoonin isha uun iskaga hay laakiin aniga la soco afkayga ima jeedaan aniga uga ogahay laakiin la soco alright barnaamijka waxaa la yiraahdaa ma arkaysaan horta shaashada ma ujeedaan ii soo qora haa ama maya uma jeedaan baa u malaynayaa hadda screen share samaynaa ma ujeedaan shaashada aniga ma ahayaa qoraalka ma ujeedaan horaad uma jeedaan okay wait a minute alright hadda waa ujeedaan soo ma سكو يسوع سعداية ده very funny people وياره هذا لا دركت سامع اوكي هذا لا دركتان سفي عن بعد ورقتان because أنا قبل أنت كثير ويا ما أرقنا يمديه كثير okay alright برنامجكم وحواية وحكو سابسية هاي money madness and threaten murder ومعنى هذه هاي لعك واللي وحكو رادن هي هنجبادل how Somali cyberbullying gangs walk around the globe targeting Somali diaspora mainly women sideebay burcada dadka ku handada internetku uga shaqeeyaan adduunka guud ahaan oo ay u bartilmaameedsadaan dadka may ahaydihin biliis dadka kaloo dhawaa u jeedaan xabiibe maxamed biliis la qabso barnaamijka aniga qalqal ha igelinina oo ay sideebay burcada internetku dadka ku handada u shaqeeyaan adduunka uga shaqeeyaan iyaga oo bartilmaameed ka dhiganaya dadka Soomaaliyeed ee degan qurbaha una badan haweenka that is the topic waaye oo barnaamijkeena who are they waa kuma burcadaas leeyihiin burcada baraha bulshada biliis waxaa idinka codsanaa inaad xakamaysaan emotionkiina oo aadan caayina dadka barnaamijka ku jira aadan caayina ayaa rabaa don't insult anybody that is the waxa aniga iga yimid dadki aniga iga yimid waayo waa codsanaya aniga waxaan dagaalamoyaa clean fight waxa la dhaho ama dagaalka nadiifka ah oo aan sharci darrada ahayn so that is ha maxay ahayd tonay yalla aytaman aytina kusoo qorina meesha okay who are they waa kuma burcadaasi waa kuma they are group waa koox mainly women oo dumar u badan a number of men iyo tira rag ah oo ku dhex jira macnaha dumarka badan based around the world oo fadhigoodu yahay adduunyada oo dhan
waxa kale yihiin who are they weli socoto waa kuma socoto vulnerable people dadka nugul waa dad nugul qaarkood women abused before oo haween hore loo soo gabood falay oo hore loo soo abuse saddex money hunger individual kuwa lacag u ooman oo qof oo dad kala duwan ayaa iyagana ku jira alright sidee u shaqeeyaan ayaa noqonaysaa qayb soo socoto ya sidee u shaqeeyaan marka waxaan sugaa inta shaashada oo ka soo karo okay how do I work haddaad u jeedaan marka aniga inaa ii jeedo ma aha Bashiir Maxamed please do not confuse me qoraalka inuu qabsado meesha waa ugu talagalay please concentrate qoraalka iyo aniga fasiraadayda qasab ma hayna aniga ii jeedaan carwo ma aha oo aniga la fiirsanayo please okay how do I work sidee u shaqeeyaan sidee bay burcadaasi baraha bulshada dadka ku handada u shaqeeyaan intimidation individual Somalis mostly women only waxa ay handadaan oo ay baqdin geliyaan oo ay handadaan oo ay baqdin geliyaan intimidation waa baqdin gelin dadka guru macnaha dad kala qaas oo Soomaaliyeed oo u badan haween mostly women only waxay u badan yihiin haween ayay u badan yihiin extorting money lacag ayay dadka ka qaadaan sharci darro oo ay si baad oo qasab waxaa la dhahaa extorting qofka marka wax si qasab wax looga qaato so they extorting money lacag bay si qasab oo qofka waxay gelinayaan xaalad oo lacagta ku dhiibo because wala hanjaba xaalad oo lacagta ku dhiibo marka extorting money bay sameynayaan modern slavery bay sameynayaan oo slavery ganacsigii dadka adoonsigii hore oo la casriyeeyay bay sameynayaan qofka haddaad ku joogto wax uusan raalli ka ahayn ama ha ahaato inuu adiga si sharci darraa kuugu shaqeeyo oo barcadaada ka mid noqdo ama ha ahaato in uu maxay ahaato siyaabo kale kuula shaqeeyo ama ha ahaato inaad ku qasabto wax uusan isagu rabin inuu sameeyo waa modern slavery waxa waaye adoonsi casri maxaa kale ay sameeyaan prostitution waxay sameeyaan dhilaysi macaasida dadka jirkooda gata ayay shaqadooda qayb ka ganging up anyone trying to stand up for them waxay isugu tagaan oo ay ku goobtaan qof kasta oo isku daya inuu ayaga ka hor yimaado ama uu nafsadiisa difaaco ayay ku goobtaan intaas meedan dhacda baraka maqad faanool okay waxaan sugayaa marka inta uu kala ka soo baxaa because ani markaan saaray iyo markaa idinka arkaysiin way kala duwan tahay extortion iyo extortion labadaba waa midna waa falki midna waa magaci alright who to let by marka yaa hogaamiya burcadaas yaa who to let by yaa hogaamiya yaa leader u yaa hogaamiye u they have a gang master and ranking members like a military waxay qabaan madax burcadeed iyo dad maaragtay xubno u kala sareeya sida militariga so gaashaan la dhexe cornel hebelo mijir hebelo wuxuu baraha absu u socdo maxay ahayd toonay wuxuu ku tagaa isbatoore saddex xarigla wuxuu ku tagayaa saddex alif le wuxuu ku tagayaa laba alif le wuxuu ku tagayaa hal alif le wuxuu ku tagayaa dable saasoo kale ayay military rankingkaas ayay u samaysan yihiin oo dhexdooda way kala haybaystaan waana burcad kasta ayaa saas u dhisan okay waa soo wadaaha iyo kaadi they have representatives at different countries in North America, Europe, some in Africa and Arab world. waxay mas'uuliyiin ku leeyihiin
amaba dad u fadhiya ay ku leeyihiin ya dad u fadhiya ay ku leeyihiin North America waqooyiga America oo la isku yiraahdo Mareykanka iyo Canada Europe oo qaaradda Europe qaar ka mid ah maxaa qaaradda Africa wadamo ka mid ah iyo Arab World iyo dunida Carabta inta waa ku leeyihiin every representative acts the master at his or her living country wakiil kasta meesha uu joogo waxa uu u dhaqmaa ama uu master ka yahay oo xukuma wadanka oo markaas ku nool yahay ama ay ku nooshahay hadday ninta iyo hadday naag tahay halahaas lama idin dhacay okay waxaan sugayaa marka qaabka kale si fiican u dhagaysta si fiican u fahma lama rabo xasil daradii Soomaalida qalbigeena idinka gasho because annaga walaashay waxaan haystaa idinka bay one by one marka anaka nala ka soo gudbo idinka idin qabsanayaan so si fiican u dhagaysta okay gangi master of the gang yaa waay yaa xukuma gangigan yaa xukuma gangigan wax aan hubaan ku hadlaaya so ciidan ka cabsanaya male yaa xukuma who he is yuu yahay waa nin baas one qaybta koowaad Cabdixakiin Ismaan Nuur oo aka naanaystiisu yahay Sheekh Soomaali disabled man on wheelchair min naafa oo wheelchair ku socda taasi aflagaada ma laakiin waa isaga sifayntiisa number 2 called himself a community leader with unregistered organization he named Xirta Sheekh waxa uu isugu yeeraa asaga nafsadiisa inuu yahay hogaamiye bulsheed oo community leader isaga oo isticmaalaya organization ama urur aan registraysnayn oo magac uga dhigan Xirta Sheekh baldigaysta urur aan registraysnayn oo unregistered ah oo Xirta Sheekh la yiraahdo ayaw oo maxay ahayd toona wuxuu yiri community leader ahay community organization Xirta Sheekh ayaa maamula ka ah never had formal education weligiis waxbarasho asaasiya ma aanu baran ay maaha still ay maaha waa sifayntiisa because we wanted to know who this guy is waa inaa ogaanaa ninka qofkaani uu yahay he never had a formal education weligii waxba muu baran macnaha formal iyo informal ay waxbarashada kala leedahay formal waxa waaye waxbarasho school tagto fadhiisato meesha doonta kaaga ekaa ama xanaano caruur ama waxbarashada dugsiga hoose kan dhexe kan sare collegeka jaamacadda mid training xataa wax ka turjuba formal informal education waxa waaye waxbarashada ka gaarsiiska ah oo aad isleedahay like Facebook soo galay waxba barbaara Google wax ku qoray waxba ka baraneen that's informal yeah so waxa he had never had formal education weligii waxbarasho toos ah muna yeela never worked weligiis ma shaqeyn America gacanaan ka go'anahay lugaan ka buudsanahay dhabarka ay fuqsan doonkan aan ka majuujisanahay ma jirto America everybody should work everybody do what he or she can do qof kasta waa inuu sameeyo wixii uu karo so America waa no mers meeshaan inta la iska fadhiisto oo candadu balaaranayso oo Europe oo la qaadanayo cayb oo sanad kasta 5 cunug la dhalayo ma aha America is a different it's a different nimankana oo naagaha hadday furaan waxaa laga qaadaa jaal support meel oo cayaar taala ma aha America cayaar ma taala America okay cayaar America ma taala okay bartugan suga marka inta xageena ka soo baxaaya please share gareeya si fiican u dhageysta barnaamijkan I am sure inuu wax badan idin kordhin doono lama midaha barnaamijyadii fataqda ahaa lama midaha this is the result waa natiijadii ka soo baxday baaritaan shakhsiyan oo aniga kaligay sameeyay laakiin ay dad kale ay caawiyaan oo Soomaali ah natiijadii ka soo baxda waa okay master of the gang bay weli noo socda ninka balaayadu ka dhaxday cirka dhulka kala haya ee madaxda u ah burcad who he is
وكما بارت 2 قيبت اللبات بانو إمكانك هادلاينا وريسيبنت SSI recipient وحاو قاتا بحلا يراهو SSI supplement security income أمريكا وحلا يقانا SSI هل كان وحلا يقانا PIP قفك disable نافذة لعقت أوقاته UK وحلا يقانا PIP يا أوكي lacagtaas marka waxay noqonaysaa mid qofka isaga noloshiisa better looga dhigayo oo noloshiisa lagu wanaajinayo iyo waxay noqonaysaa lacagta lagu bixinayo dadka isaga haylaha qofkii uu qabay hayso qofka sariirta seexayso haddii uu maxay toona bambar xiran yahay qofka bambar ka bedelayso this is not insulting ay maaha laakiin this is reality way yeah supplemental halkaasaan qalda supplemental security income mental kaasaa ka maqan wait a minute aan ku daree supplemental okay waa kaas supplemental security income living wuxuu ku nool yahay in a housing oo dowladdu leedahay subsided by VOA oo ay VOA lacag ku kabto ku kaalmayso receives wuxuu helaa oo asaga laga bixiyaa macnaha waxa laga bixiyaa laga wadaa ingiriisiga mar si toos ah looma tarjumo marka waxa laga bixiyaa 2 hours personal care attendance oo loo soo gaabiyo BCA 12 saacadood oo ah in asaga la xanaaneeyo loo qabeeyo guriga laga hagaajiyo maybe haddana cunto samaysan karo loo sameeyo haddii qarka saliid loo marinayo bacad loo mariyo qarka laga dhaqo qarka loo feerayo laga bedelo ilmaha loo hagaajiyo ayuu qaataa this is a fact marka his BCA maxaa waa personal care attendant yeah oo 12 saac laga bixinayo services one Somali owned home care agencies waxaa ka bixiya hal Soomaalida ayaa waxay qabtaa sida halkan ba ku qabno waxay qabtaa meelo care ah ay qabtaa meelo care ah ayay qabtaa oo dadka vulnerable ka ah ama naafada ah ama waayelada ah lagu haayo marka dadkaas meeshaha lagu haayo Soomaali meel ay leedahay yaa ayu laakiin one ba ma aha waa 2 sukalkaas aan saxay waa 2 by investigation come out 2 laba ay adoon ayuu ka qaataa lacagtaas oo ku qoran yahay isaga so that means marka inta uu soo baxaya kan kale waxaa rabaa in asisho taas macnaheedu waxa ay tahay waa nin isagu Allah iyo rasuul u baahan nin isagu Allah iyo rasuul iyo everybody kasta muslim iyo gaal oo la isku daray u baahan waay asaa u baahan in la caawiyo okay part 3 the master of the gang awali noo socda madaxa burcada waa Cabdixakiin xerta sheekh Soomaali I am not afraid to mention his name all right his unregistered organization xerta sheekh la dhahayo organization kiisa xerta sheekh la yiraahdo waxa uu ku sameeyaa fundraising macnaha oo organization kaas unregistered ka oo illegal ku shaqeynaayo oo uu sameeyo waxa waa inuu fundraising ku sameeyo oo uu lacag ku ururiyo ilaa lacag la ururiyo lama rabe meeshan oo gaal iyo oo muslimba beesa la iska fiirsho waaya argagixisada la siiyo lama ogolo beeso qalqal lagu geliyo dalalka dal walba ma ogolo shiisa wadan kasta shiisa fadfada gaxwaa so that asaga wuxuu waxaan u samaystay in uu lacag ku ururiyo ko maxay tahay to fundraise his bullying projects mashaariicdiisa handadaad ah against the Somali vulnerable women oo uu kaga horjeedo dumarka nugul ee Soomaaliya ko talabaad his working trips shaqada ama sharciyaad ama sharci darro ahaato safar hada marka meesha intuu soo fariisto dhaxay anigu waxay kasbaan aadaya anigu maanta hotel baan aadaya anigu maanta hebel baan u socda anigu gobol hebel baan aadaya lacagtaan uu ku bixiya si hadhow
haddii illegal activities ka lagu qabto oo u ogaado oo u saara meel oo lacagta saara oo leeyahay. That's what he does. That's what he does, this guy. Okay? That is what he does. Okay, maxaa kaloo sameeya? His hoteladiisa ayuu ku qarash gareeya. He's hiring freelancer gangs. burcadda ugu shaqeysa as a freelancer oo macnaha aan memberska rasmiga ka mid ahay laakiin markii loo baahdo. Like holan oo kala qof looga baahana member ma ku qabo. burcadiisa xirta sheeqa oo asaga u jajuuban member ma ku qabo. And then he is going to hire a freelancer. qof waqti ku meel gaar la shaqeynaya buu soo kiraysanaya. qofkaas marka uu soo kiraysto lacagtan waayo marka fundraiser lagu sameeyo lacagta wuxuu ku bixiyo. He is free to choose his care attendants. Dadka oo dumarka asaga loogu talagalay ee 12 saac inay masaajeeyaan, inay dharka ka dhaqaan, inay maxayta u qabeeyaan, inay maxayta bahalka ka bedelaan, inay waxa ka sameeyaan, inay cuntada u kariyaan, inay guriga u hagaajiyaan. أصادق إلين سوماليا إلين من سوماليا ولا وإيش بركة إحنا هتعددش أترى ولا لا حواني قبضت كم حواي في سوماليا يا إيرون أنا إكير جرس أنت والله إيش كسودرا سوماليا الله إيش كسودرا أنت حتى قفكم أتصدق في سوماليا ربع سوماليا هاي معنا يا لكن using this opportunity فرصة عم استعمالها to employ this choice of women وحوش فرصة أنا استعمالها مركا اللي أصلا قرنا ما هنا وحوش فرصة أنا استعمالها إنه شقالة محيط ضمر أما هوان وأسقوا دور إنه شقالة and he used as an agent ضمر كي لقى هنا ولا حتى دولة لقى هنا أو هو استعمالها ده أسقوا شقالة agent صح أو استعمالها وكيلة مركا محي سمينا كوعايا تيها بدو تسوي حسام خلاص أنا آمنة وأنا قاعدة أحكي أنا قاعدة يوسف أنا قاعدة أساسا إيالك ما من بليز بيبي وكوي أسرع مركا ونقا يوم مساجين هاي وقبي هاي واحد يا سيئو وحكى له سمايا عادات أيه أدوبا عادات كفتم أوني كانت تارجت دريستو عادات كودا أيه أدوبا يا السكريد أبو دوبان وهالكن ناجح في الفيرة ما راح يكون ستادن إيه كأنن عدد دوبان هالكاس أو أسرع بهالكيسة أوكي وحكى لا يسميها وحي الله يجريان أو يوجا هذا هبش شيئا والله يوحو أسرع يبرع بالسكر هذا وحى إسلامها الله قف كان بلايا كذا تقدم برأس مرة حسنة وأكون شقيري يكون فريلانسر يكون شقيه يكون سوق جانجسكو ما معاكم شيء الله وشط ووحي كسر تستنوا ويقول لا يجرينا يا ويقدس لا يجرينا يا أفكرت أو فيكتم أو سنا أنا جاي ولا شيء يضمر كلام بلنا مركي وحصاق قرانا تشمو معايا وأكو قابنايا مركز أنا يا هالشربة حرسة خفقست قفك intimidation ولا سمايكرا أما ضبط النهار سلف ولا سمايكرا قفك إنه أسرع ود الشخصيات كشكي ولا سمايكرا يكون سماينا يعني هو وعيا دلنا بينه سبحان الله حراس سماينا ده كاش مركز ما يقدر يسمع كراينا فيسبوك هذا الشيء قلايا يوتيوب أنا كومنت كرينا إنستغرام أقطع كومنت كرينا سناب داش بوست هذا قطوة وحينا وحوطن يا أي سمينا يا سيسو مالي ذا كله لو هندو أي سمينا يا ما حكى له سمينا he uses many alias هل كان دقيسو this is the best part أو أنا نقطع على هواي ماشى دقيسو مرعيادة أو سمي أو أنسوه بينا نور فارح واسقة ليبان عبدي واسقة إبراهيم عبدي واسقة علي واسقة بيكولو واسقة مهدي آدم أو مهدي قرية MHD ما هي آدم أو إنجليزي قرية واسقة إسلام قاسوا بدل أسو مهدي آدم كديقة عثمان واسقة أنت سي إنك بد أنت سواء أنت نهب نوعي أنت أنا جاي تيم كذا investigative كا
intaan hubno waa intaas laakiin way ka badan karaan so waxaanan hubin ma rabna inaan meesha ka shaqo okay waxa kala jira usuga burcadiisa waxay isticmaashaa duniya kaaja Jack Elman in magacyo kale waa burcadiis ayaa isticmaasha burcadiisa duniya kaaja Jack Elman labadaas burcadiisa isticmaasha iyo kuwa kale oo badan okay si fiican ula socda please si fiican ula socda aniga marka idin hadalka ka dhigilnaa waxaan sugayaa because uu kala dambeynaya aniga markaan saara iyo markuu idinkeeda soo gaaray inta mid kale oo ka korka kale ayaa sugaya okay wuu soo wada iminka wada jeedaa all right next qaybta sideedaad waa his daily work ninkani haddaan soo sheegno inuu naafada yahay haddaan soo sheegno inuu intaas oo falal sameeyo sideeba daily workiisa yahay muxuu daily every day muxuu qabtaa every day muxuu qabtaa his daily work what is his daily work exactly but one qaybta koowaad employs his choice of women sometimes non-Somali young women to do his dirty business wuxuu shaqaaleeyaa dumar dhalinyaro ah ilaa hadad habar duqaha ninkaas qaadi karto oo dabaka tiri karto ama u qabay karto runta la sheega ma reality-ga waa saasde qof duqa oo ku faysa ma qaadi karto soo naag xoog la fiican dhalinyaro oo jawaabaneeta ah ayuu employ garaysanaya maadaama hore u soo sheegnay in labada keer oo Soomaalidu leedahay daykeerka ee asaga lacag ka bixinaya uu ku qasbay in uu maxay ahaatonay uu asagu doorto dadka u shaqeynaya laakiin dadkaas marna Soomaali ma aha waa kuwa Soomaalidu ee Oromo Ethiopia Eritrea anyone oo Soomaali u eg uu shaqo garayna ya ayuu employ garayna oo u shaqaalayna markaas maxay u sameynayaan to do his dirty business shaqadiisa wasaqaysan bay u sameynayaan ugu shaqaysta buu sameynaya extortion Somali daycare and home care agencies tanaba ka daranba wuxuu xataa blackmail ku sameeyaa oo lacaga baada ka qaata Somali daycareska aan idin sheegay iyo home careska oo Minnesota ku yaala Somali daycare iyo home careska Minnesota ku yaala ayuu lacaga illegal ka qaadaa oo baada sababtu waxay tahay as most of them works illegally oo ayaga qudooda ayaa intooda badan ku shaqeeya illegal aniga ma aha investigationkayga ma ahayn inaan dadkan Soomaalida ee daycareka iyo home careka leh inaan taargetsado laakiin waxa investigationka iiga soo baxay markaan intaan ninkan baarayo waxa investigationka iiga soo baxay ninkaas u daba socday meesha ila gashay ninkaas u daba socday meesha ila gashay marka iyaga qudooda ayaa ku sameeya ayaa illegal ku ma ahayn وجيت تاجر دارك كفر يما أنا قلنا بعد هاي اللي لازم استعين معك تشرع مرسي ما كره because هدين لبار أو تعمل كلامك أيها كل هذا أيها سيارة ألدن كشقين أنا قم مرة بدأت إلى تارجت شدو معها أيها معها تارجت ما هو كلام سمينا intimidates his targets to extortion money that target كيسة like أمينة like محيط أنا قبلنا اللي يراهدو فوزية أنا قف كل شقكم مني مسؤولنا كميه قف كل شقكم مني مسؤولنا كميه لكن قف قصة أو ربع إنه abuse أو بانجس كيسة كسود ده because أنا my family's life matters and my life matters أنا نلش شيء ده نلش قيس كي يا قصة أو مهم إيه قف كلام مهم إيه ما هانيك لكن سيدان وحان أوضو أنا أبرر بابا أسيقا يبور حد سيدان تكاكاقبت أوكي وحي سمينا يا مركا تارجت كا أو صارتي ليشانك قف بسويقا ليشانك دادك أو صارت يا دادك أو ليشانك صارت أيو وحكو سميا وحكو أبسي بلي هذا لعقتا إيبن بلايا كوكو دحيس بلا عركا كاقا سو دقيس محو بلايا دا جنكرا مسكين كان كرسي كوكو أباباي what exactly who could do yeah asaba illegal socda muxuu kala sameeyaa intimidate the hard sellers in Minnesota while that is illegal in USA
wuxuu baqdin geliyaa dumarka iyo ragga sida kontrabaanka ah qaadka Minnesota ku gala ayadoo qaadkuna uu illegal ka yahay oo drugska lagu daray oo uu kontrabaan ka yahay oo la ogolayn Mareykanka dhexdiisa marka qofkii illa ogadaayay wax aan la ogolayn oo drugs laga dhigo qofkii gadaayay ayuu wuxuu ku samaynayaa isagiiba wuxuu ku samaynayaa waa ku soo sheega hawlay waa ku soo sheega hawlay hadaan anigana qaadkayga si lacag intaasna isii mana diidi karo qof ما عندها أنا الحمر وحنا هنا هبلال هبلال أقل قرية عندنا أو دتك جلاه أو دتك جلنا دتك أنا أو كتر مرك دتك أنا أو كتر ما كلو سمعنا يا تنا أوصي درا pimping Somali vulnerable women single mothers mental illness patients disabled individuals school girls teenagers boy and girls إيه وحي لمده وحو جركودا كغنعسدا او u gawaadaya pimping waxa way gawaado waa nimanka iyo naagaha gawaadada ah oo dumarka gada jirkooda ka ganacsada sex slavery ka dhiga ya sex slavery ka dhiga marka dumarka siyaadaan kuwa masaakiin oo single mothers ah oo aan noloshana weli ka soo kabanin ya oo masaakiin oo nolosha ka soo kabanin waxa kamid ah kuwa mental illness patient oo dawooyin iska qaata oo masaakiin ah oo aan dawadii xataa si fiican u qaadano marna qaata marna ka tago oo mar walba hadana xanuun soo noqonayo waxa kamid ah kuwa kale oo naafa sidii soo kale naafaduna waxay leedahay moogtahay mid qarsoon iyo mid banaanka taalo kuwa kale ma jecla qof kasta oo dhib ku haya school girls ilmaha yar yarka ee teenage-ka ee fiiqfiiqana quruxda badan ee Soomaaliyeed ee iskuulada loo soo dirsaday teenagers kuwa iskuulada ka drop out gareeyay iyo kuwa kaleeto oo wiilal iyo gabdhaba leh oo dhan ayuu ka shaqadaas ka qayb galaya let's see number 9 okay wariyar ma share garaysan yeah please share garaya kulligii share garaya this is education why not only investigation ma tan waa natiijadii ka soo baxday investigation ka aniga asamay laakiin haddana waa waxa waaye maxay ahaatana waa education but education is daily work still daily work yaa socda shaqo maalmeedkiisa weli socda ya shaqo maalmeedkiisa ayaa weli socda all right qaybta labaad oo shaqo maalmeedka claiming illegal insurance claims after targeting Somali elderly car drivers while they are minding their usual business at the parking lot in and around Minnesota. waxa uu codsadaa insurance claim macnaha caymiska marka gaarigu shil galo ayuu si sharci darro u codsadaa muxuu samaynayaa marka wuxuu aad u targetsadaa dumarka iyo laakiin ugu badan aniga sida investigation ku soo baxay waa yeelada oo weli baabuurka wado like 65 and over oo weli baabuur wata jiraan kuwaas u targetsada marka wuxuu samaynayaa qofkii oo like tagay supermarket ka cunto soo gadanayo kala ayuu wuxuu samaynayaa gaariga markuu kala baxaayo qofku maarka parking gaariga markuu kala baxaayo oo hadii kala badana wuxuu fiirsadaa kuwa oo gadaal haduu loo soo bixinayo oo marka hore af loo geliyo parking space oo fiirsada marka qofka saas u soo baxayo oo gadaashiisa intiis ku aadiya baabuurka oo gaarigana hadda baabuurka ma taaba gaarigana luq qabsada na wali wax alla iyo wixii area-da jooga ninka adkiisa harta balada waa taqaanaa waa cabaadayo qofka baabuurka ku soo daray laba wuxuu isku darayaa wuxuu isku darayaa lacagooda isku daraa mid inuu siiyo midna inuu illegal xagaaray xababa ma gaaray maba jajabina gaariga butuluq iska sii gaariga oo butuluq iska sii wax gaaraba maba laba gaariga hawadiisa xataa ma gaaro iska daa in gaarigu taabtay markaas wuxuu sameynaa markuu sida butuluq gaariga iska sii oo gaariga waxay adigu meelahaana wax murmurxiis ya marka meelahaan murmurxdo insurance company oo maskiinkaana ku jira odagaan qudqudka ninka in lacag la siiyo lagu qasban yahay usma diidi karo
لما ديدي كريم وقتها وسجاد أدروان النافع إنها شرعي سير وحي أركان أنا كدام بقهر وحاول يسنا ننسك عادي أسكن ما كوس قلت يسبا الله يا رسول الله أنا مسكينة لكن وابا جانجوا برحة على حكم الله الله رمركم من سمينا إنها شرعي محي وأركان سكر محي وأركايا المسكين والله قالها وقارك وجوجو بابور يجوكس يلا ريدا بطرق لقسي ماشي سوي أركايا لا سوي أركايا ساسوا شرعي عندها الشرعي ساسوا أركايا and he is not took okay working as a hired man to insult any people who have a beef to each other سيفي يعني يدقست وحو سمينايا like كدك أنا جاي قبل فاطمة جامع ليرة أما فاطمة حسن ليرة أما فاطمة الرجل ليرة أو إحنا قد حدا وحي وجانا قد على إذا كشيء قدونايا برحة أوسو وجانا ماشي تارجت عدة تارجت لقد كذا برحة أوسو وجانا مركب وجانا ناقة هواتة سومالي نواس كتقنا هذا الناقة مركز سينا ما بتصير نبا فاردني نيجي كمان كل حوينا أمنو سنقل ما هو كله أيا فاطمة مرة بلا ما فاطمة جامع أنن أيا إسكاك قبصان وكل حوينا نيجي يعني كذا تاريخ سومالي وتوات سرنا نعم فيسبوك أقصر قرينا وحكس إلا بين إلا سر من هنا سر من هنا مركب فيسبوك وساقن أو حوسة مينا تكيو مش كتارجت صح ما تارجت صح وحوسة مينا خفي بلو أنت كلها هاي قفتي أو أخرى فاطمة واحد أحسنت المقطع إنك أنا أصلا بالنظر آمنوا هلي شو كان صد يا فاطمة ها نحن حبرت نحن هوسن بالنظر آمنوا هلي اللي يربي بس شقي بستو ما قاعد وحنا واحد إكزامبل يا سوماليا سيريا سوق هذا يا سيريا سوق هذا واحد إكزامبل إنك فهمتين الربع هي أنا كو هي شنكون كه وشنكون هي هيسا مسكين هداي هيسا نوا هيسا هداينا هي نوا سود هيسا هداي أيوة تكون ترتنا على هرم رياض أول بيع مال كسر سماه سي آمنين كاللوجا ريم يدا آمنوا ينين كان سخرة أكليها أموخده لكن نين كان already black مايلو كسبنا مركا hired man one he working as a hired man to insult any people who have a beef to each other. أفضل بالله قف كست أسكو حناقصن. أيوه أو حكد حيان. يا أو حكد حيان أسكو عريسة. أيوه نحن هذا كفاية يا. أنا كو عيناي العكن. أنا كو عيناي العكن. One of our شقيستوي. ما حكلا سمايا. Blackmailing the trailer drivers who are far away from their wives that he sold to his women. And create terrible with their families. نيمان كتريلا ده ولا تريلا أمريكا كنيمان كبدك تريلا ولا وطن كان نيمان كبدك تقشي ولا نيمان كتريلا يقول أو ناقة هذه أوجيمت far away from them قبل أتلانتا ملكة أوجيمت أو حولي هاي أو هذا إلهي نكعب سينو محسن إسكال وبسكرة ولا وريها ناقر حنا كوهايا وقترها سا وكوي مساي واي مقطع أو ليس كان يجود كذا كذا نمكن نكتب لك بقصيها صدور سارة نكتب لك بقصي ممكن نكتب لك بقصيها هاي بسوي على قناة هي فيديو هبرتيس أو عنك شبك هبرتيس أراس إلا تصال واحد وصال وصلنا كها تريها أو ترى كيا بالنفس كهيس ناكتي وتقاس ما أنت بترسخ أني I love you because the camera أنت اسمع المرة النقلة I will come in مرة وتقول ناكتي already وحلا وقدر واتساب الله قدر منك هرتو وحولا يا وريا ها كنا وكاهايا ما يجا حاجة ما سيجا حاجة بس منك هو طلع كويسة منك لعبتي وديبة أما ما ديبة يا مهاي ما ديبي وايد مصور كي فيديو أردايا ناكتيو حتى قبل كي كلا جفتو ناكتيو بورسن أو حنخسن أو وعسن وني كان تقع هالكي نكي إذا مرحبا كي معاك سودا وين لهي ما جفت إلا وحي أكتا أرنتاني أكتا نيكي كديدة أو كي كان ما أنت تريليس إنو شغنيا والله أكثر بدن صوبشو
gabadhi sawirkeedii oo soo qaada asaga sawirkiisa soo qaada walaxo isku malaakuusa mid gaangiska kamidana howlahaas u suubiso gadaala idinka sheegi doona walaxo isku malaakuusa dad Facebook soo saara ununka waa xasil garanahe milyan kan Facebook ku jirna ku dhufayna share nimanka naagaheena kulligeen banin Soomaaliyeed bana laga shaqeeyo qofna waa darbanaha waa diyaarsan nimanka xulka Soomaaliyeed basters ayga xumo igu dhaa gabar suuqayaan mujida xaaski suuqayaan baba haddii raba ninkaas waa been baxabad masuuq oo nin maxsir raba ma ahayn okay maxaa kaloo sameynaya dealing drugs had drugs and small one is both wuxuu ka ganacsanayaa daroogiska daroogadaas oo ka ganacsanaya naaga xitaa waa u dhiibaa baabuurtooda waa ku qaada kuwa baad maylka uu ku sameeyo oo hadda meel kasta u laagala xirta meelaha u galo jinniyaa gala xaajin u gala waa shaydaanul insi ajinni dad wax ka qaadi karo what he can do about it naagahaas u commenti garaynaya xataa baabuuradooda ayuu ku qarsadaa daraagiska baabuuradooda ayuu daraagiska ku qarsadaa qaybta 10aad iska sabrayaaye qaybta 10aad waxaan sugayaa inta oo ka soo baxo waxaa idin sharxi doonaa qaybtan burcada ninka la shaqaysa laakiin for legal reason magaceeda ma sheegayo laakiin rankinka militariga ay ku jiraan ee wadanka ay joogaan ayaan ku dhiranaya waana sheegayo waana runtay waana sax waxaana evidence ka hayna caddaynteedna meesha lama imaadaan inta afar habrood balansadana heblaan caayahay kaalaya ma madoobo qof kale ma khadkay kula jirto ma aragtaan qof kale khadkay kula jirto me my office my computers my books my lighting my computer waxay gubay qof kale igula ma jirto I don't need qof kale marka waa his gang members and their sidekicks waxaa la dhahaa ingiriisiga ya Sultaan Axmed Mukhtaar sixirka maadaama aan la soo xiri karin oo na sharci lahayn markaanu dacwadda ku oogno oo dacwadda ku furanto markaasaan noo baaran leenaa walaxo afuufaha la yiri ninkaan iyo kaada gang memberkiisa marka laba qaybood ay shaqeeyaan qayb waxa waaye waa freelancers markii loo baahda loo yeertaa qaybna waxa waa full members waa full employed waaye waa sida full time job adoo shaqo laga siiyo adiga oo lagu maaragtay markii la rabo lagu wacdo like temp shaqaalaha la dhahayo kale to afigariis waxyaabo badan ayuu maaragtay oo uu ku kala gadiyo Mrs. A naagtaan u bixiya Mrs. A laakiin magac kale leh I don't care her fucking name aniga investigationkayga daraadiis maadaama ay ii soo wada baxeen magacooda ugu yeeri maayo magacoodana ma rabo mararka joobaani magacooda ma rabo Mrs. A waxay ku nooshahay dalka Denmark employed by him asaa shaqaaleeyay full member waa xubin buuxda ayaa ka tahay gangiska Mrs. B living in USA waxay ku nooshahay Maraykanka employed by him asaa shaqaaleeyay waa full member gabadhan waa gabadha isku soo xirxirta sawirada because he doesn't have any digital or video editing malawan in sheega formal iyo informal labadaba education formal iyo informal labadaba male waxa ma baraninka marka tahay isku soo xirxirta waa Mrs. B oo Maraykanka ku nool si fiican dhagiino u fura waa naga xabsatay maaha this is a legal way to do things the journalists like me ma sheegaan magacyada A B C ba bu ba war hadaan rabo Mrs. Bottle u baxa hadaan rabo saliid Mrs. Bottle kidada ahay au baxa hadaan Mrs. C living in USA Mrs. C she's living in USA she's employed by him full member asaa shaqaaleeya waa member buuxay ka tahay meesha walibaba ayada ayaa isbartay Mrs. A iyo asaga Mrs. A da Denmark ku nool iyo asaga Mrs. C oo USA ku nool isbartay Mrs. D she's living in UK employed by him
يا أساسا قالين full member وايا وحبين بيحدو كيا صدق معنى هذا ما تقانا أو حكا دي ما تقانا وحكا دي أنت وهادي if he goes down they will go down with him هذا السنة الشرعي وهلا أو حارق إيه محكمة حكومته أيا كان ولا حكومة they will go with him. This is not a joke. I'm not a joking. I don't joke. I don't joke. I don't fucking joke. ما joke يعني. ما أنا عايتمو. لكن عقلي أيان ليه. عقلي والد اللي كل شيء أيان ليه هاي. كي هذا أو شو والد كل شيء. ما كسكار كيس تدقق كي والد وحصل. سو ملاكوسته. All right, Mrs. E, who is she and where she's living? Mrs. E is living in Holland. Holland by Konosha, employed by Mrs. A. Mrs. A from Denmark, Aya Korto employed Grace. But Mrs. E is a freelancer. We're freelancer. Wow, freelancer. Wow, that can mark a lawyer. Dadka, marka la raba lawyer. Mrs. F, I am not sure this one, but I think she's in Finland because she moves around so much. What I don't care. What I care about in a burad. So Mrs. F, she's living in Finland, I assume it, because she is moving around. Employed by Mrs. A. Mrs. A. She is very dangerous. She employed most of this latest employee on Mrs. A. So Mrs. F. living in Finland, employed by Mrs. A. And she's freelancer. We're freelancer. We're that lawyer to work and others. Yeah, kuwa kale halka ay saaka maqalad may correct please. Others. Yeah, kuwa kale who are not doing very well or ganging up tactics but still a member of the gang. Yeah, kuwa kale shaqada la yaram suugo aan hawl fiican qabano. Loo fikro la yira and these members they are not doing very well. That can wax fiican ma sameynayaan ala dhax kuwaas marka kuwaas waxa weey xaalkooda komsa iskuma huba xaalkooda iskuma huba ya xaalkooda waxaana daahir cala soo kun noqday sugana u jawaabay midaan sultan waxaana daahir cala soo qofkaas daahir cala soo adigu u baarsan tahay he is not part of this gang daahir cala soo wuxuu ku noqday I used miss not master. So please don't mislead the income and the result of my investigation. Stop. All right. qaybtan soo socoto waxaan ka sharxaynaa xubnaha oo full memberska ah waxa ay ka shaqeeyaan ayaan ka sharxaynaa insha Allah maxay qabtaan xubnaha full memberska ah part 1 what they do full members of the gang what they do maxay qabtaan xubnaha muhiimka oo full memberska xubnaha joogtada maxay qabtaan they collect information about the future victims and potential targets waxay ka aruursadaan xogta soo ururiyaan dadka dhibanayaasha mustaqbalka noqon doona iyo kuwa targetka ah oo potential noqon kara exactly target noqon kara ay soo urursadaan waa sida walaashay la yeelo waa sida walaashay la yeelo waay okay what they also do Hakalai Samaya, they do live streams, both videos and audios only, banging up the individual targets. Hey Samaya, live video by Sogala. I'm a color mugdi has Sogala, I call Wiga Hasaya, a color mugdi Kasoja Jakaya. I have all Sugutaya Marcas, Muhammad, a ganging up Halaka Sugutis, Kushamumo, a friend Hammer,
ويا ران حمرا مش قلت له شمومه أنا وقال له شمومي قديم ما كنتش جانجن أبغى له شبيه waxay ku shamuumaan individual targets like me and my sister oo kale iyo gabdhihii kale oo hore u soo sameeyay kale ayay ku shamuumaan they intimidate waxay cabsi geliyaan expose ay kashifaan give bad images oo magaca xumeeyaan iyo sida afka fiilofeerada ku sidato oo kale waxay mayaan dhahay excuse my language but laakiin marka qaarkood way ka soo fakay because bini aadan aan ahay Mrs. Filofero so waxay horta aniga ii caayayso oo kaleeto waa inay aniga magacayga bad image ku samayso ma ku samayn karta aniga ma ku samayn karta ma ku samayn karta aan wayba sheegto ka weynaha aniga maadaama aan ka weynahay marka weynankaas daraadis ilaahay aniga inaan Filofero afka ku xirto wayga waa iga nabadgeliye waa weynahay ilaan duqaan ahayn qof duqay ma Filofero kuntaysa gafuurka iyo sanka iyo meel walba no so that I'm saying thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أنا بس هذا كلا يرى. لا يلوا يرتو حبض ما قرأته. حتى إلا يرى. سانك يا بنتي طبعا إلا يلوا ما قرأته. You know. بس كعلى كراه. نايا يدا. ملا كقرع على ده وإس كعلى كراه. Mrs. Filofero. إنا يرى هذا مرة بعباية وحرب وينك يا شرفتي ده. like this إنا وشقي. not in ayaraad kugu fogaan maayo ayadaa dadka intay ayda ku fogaan maayo tira hoono kugu fogaan maayo anigana akasan kala soconaya they find new contracts for their master from the others who need to hire the group waxay u soo helaan contractiyo cusub ayay u soo helaan dadka masterkooda wada ninka gaariga ku fadhiyay bay contract cusub soo helaan ayagoo u soo raadinay dadka raba inay kooxdooda kireystaan hadda contractkan ka dhamaado halka ay rabaan moogta mid bambido si diyaarsana they collect money from his victims dhibanayaashiis ay lacagaha uga soo ururiyaan cover up his illegal fundraising GoFund accounts waxa ay isku qoraan ayaga ay cover up sameeyaan oo qariyaan oo sharciga ka qariyaan GoFund accounts ku lacag ku urursado under his unregistered community fucking organization oo uu ku sameeyo ama uu kula shaqeeyo community organization kiisa aan qaraysnayn aan register qaraysnayn oo sharciga ahayn number 12 wali wixii waa socdaaya don't get bored are you bored ma ajisteen masa awala qatar filimkii maxaa la dhahay waxaa fiirsado weysay filimada turkiga oo uga dambeeyay anaga ma fiirsado badana filimada turkiga kii ugu shidnay ma awala daaran masa waxaa daaran iyo shaki kale zara zat his gang members and their sidekicks part 2 memberska xubnaha memberska oo gangiskiisa iyo sidekickskooda oo caawiya راحوا ما ده ميدا كاب عاجز كربا وابدين بلا يا قبينا وين قاعدين سو خاطر باش okay comments and trolls Somali women's posts on Facebook and their social media platforms waxay comment gareeyaan oo troll gareeyaan troll waxa la dhahaa dadka comments-ka ku caaya oo wuxuuna ahayn ku sheega ayaa troll la dhahaa waxay troll gareeyaan oo ay dabagal ku sameeyaan oo comments-ka ku caayaan dumarka Soomaaliyeed posts-ka ay Facebook soo dhigaan لما راح واكل كفتمية صادق عن فيسبوك أما other social media platforms whether it's Twitter أو تويتر ما كمان بدنا لا بيصير حقيقة لكن بدنا ماشي كوكا عن أبريان تطلع حواي فيسبوك and some of them Twitter Instagram alright وحي سميان attacking individuals all sort of accusations وحي كوارا kala gaargaara hadba qofkii markaas saaran miiska qofka saaran miiska kawaanka ayay waxay ku weeraraan maaragtay accusations
معناها وحين قفك هاي كل شيء كويدا يا وحاسوية وحاسوية ده فرح سندك ده ما دارين داري الله يفقد أنا هاي سنة يدي هذي وكلا الهارت of insults ما هاي طنا أي حنو الهارت ده قلب حنو جرن كتمت أيضا كحاجة هارت وحي داوعات emotionally إيه mentally داوعات the targets and victims in so many ways dadka ay bartilmaameedsanayaan iyo victimskooda yaa oo iyo dhibanayaasha ayay maxay ahayd toona ay so many ways u dhaawacaan outcry stigmas waxay la qayliyaan stigma on the mental health issues in Somali communities using social media platforms, mainly Facebook. waxay stigma ku sameeyaan oo ay la qayliyaan way xanuunsan tahay abarta xanuunsan ninka xanuunsan aakhira way xanuunsan tahay isugu bas amina waa wallahi billahi berigi ugu horreeyay waxay u maleeyahay waxaan isleeyahay ninka roonoo daranba waa xeeta walaala ku leh ilaa walaala maaha amina waala oo leeyahay قند عرب واي معناها عيو فهم أمنا والو تيك لو سوق شيء في الأفير بدل لا بتحلو سأني شو استك معاه كامل كمرك حنون نروح أما حنون سنان أما أنا حنون سنان ما بحنون سنان لكن كمان نتبطل في السوق كان حنون سنة حتى يقول ما أي كرت أنا حنون يقول ما أي كرت مرك كيس كيقول محكمة تقول وا سبيشال كيس واي ها سبيشال كيس واي marka dadkaas ayaa waxay ku dhacayaan mental health issues in Somali communities using social media platforms bulshada Soomaaliyeed ee isticmaalaya social media platforms mainly ugu badnaan Facebook ayaa ku dhacayaan stigma kala maarata erayo oo stigma ka muuqato oo maarata qofka lagu baxdila lagu liiday like inuu qof normal ahayn kala ku soo wadaa sida markaan waxaan bilaabaynaa qaybta sida aniga iyo walaashay ay noogu lug yeesheen ama aan anagu ugu lug yeelano labada dhinacba bangiskan iyo masterkooda ayaan bilaabaynaa okay how me and my sister sida aniga iyo walaashay involved ugu lug yeelanay this gangiskan and their master iyo madaxdooda gangiskan iyo madaxdooda sideebaan ugu lug yeelana the master hired by other members of our family ninkan gaariga saaran ee gangiska madaxdooda waxaa soo kiraystay dad annaga familkeena ah oo xubna familkeena ah kama way cataa la yiraahdaa soo kale soo moogid marka adiga familkaaga ay burcad ku soo kiraystaan waxaa la yiraahdaa kama way cataa Soomaaliya waxay kala joogaan ay kala magaca u baxsha marka Mrs M from United Arab Emirates Mrs M waxay joogtaa Imaaraadka Carabta Mrs A waxay joogtaa UK Mrs S waxay joogtaa Canada saddexdaas aan noo soo kiraystay anigu sida investigation ka soo baxday waa saddexdaas wax soo kiraystay asaguna wuu qirtay aniga waa ii qirtay dad kale badan waa u qirtay gabar walaasheena waa u qirtay gabar walaasheena waa u qirtay these family members marka unfortunately these family members xubnahaas qoyskeena ah dhiigeena ah hilibkeena ah are the step sisters waa ku aabba ama step sister waxaa la yidhaah hooyadaa iyo aabbaha qofkayna wada dhalay oo ama aabbahaa dhalay ama hooyadaa dhashay laakiin waa walaalo isku aabba ah Fawziya Faarax Weheliya Cadow Sintico ayay ku aabba yihiin step sister ah oo ah Fawziya an American citizen qof haysata dhalashada Mareykanka and now wanted back to her mother country Mogadishu Somalia oo hadda dib ugu laabatay wadankeedii hooyo oo magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya rebuilding her country's development way meeshan soo saxaya si ay uga qayb qaadato taking part the rebuilding her country's development si ay uga qayb qaadato horumarinta wadankeeda si ay uga qayb qaadato waa
ayada ayay la dhasheen macnaha ayada ayay u aabayihiin aan ka wadaa siblings waay horeed waa sugaynaa marka wax la qaraaya meesha male wax la qaraaya because adiga hadaad anagoo walaal aan noo bareerteen in anaga burcad xun oo aan nagu qabiil xataa ahayn warayaa soomaalida qabiil wuxuu qaybsata qabiil isku disho sababta aad aniga nin far away from me adigu soo kiraysanayso maxay tahay ama walaasha ugu kiraysanayso si fiican u fahma here this part is very important qaabka loo kiraysto why loo kiraystay soo socoto very important part 2 marka how me and my sister involved these gangs and their masters part 2 qaybta labaad sida aniga iyo walaashay ya sida aniga iyo walaashay aan ugu lug yeelanay burcadan ee madaxdooda in order to do the job to hire and assassinated her burcadii marka si ay shaqadii loo soo hayga marka waxaan qaybta hore kusoo sheegay inay iib soo ijaarteen 3 qof oo qoyskeena alright oo haddana kulligood wiilal ma aha waa gabdho alright magacyada ugu horeeyay u bixiyay idin sheego alright oo gaagaaban dadkaas marka si marka shaqadii loo soo kireystay oo burcad madaxood iyo burcadow say u kireeyay u hirgeliyaan ayay waxay la imaadeen 4 different stories oo wax ka jira lahayd 4 waxay la imaadeen sheeko oo la dhoobay an endangered waxay geliyeen qatar Fawziya Faarax Sinta's life Fawziya Faarax nolosheedii bay qatar geliyeen alright what is that 4 different maaragtay stories kaas ay la yimaadeen maxaa number 1 waxay dhaheen she's a member of al-shabaab waxay ka mid tahay ka tirsan tahay waa qayb shabaab ka mid ah yeah listed as international terrorist organization shabaab oo ku darsa ama lagu daray liiska argagixisada caalamka ku jirta ee waxay dhaheen way ka mid tahay number 2 being part of a spy of international community in Mogadishu waxay yiraahdeen waxa ay ka qayb qaata ama ka mid tahay spyska maaragtay dadka u soo basaasiinta ee bulshaweynta caalamka ee Muqdisho joogta remember marka halkaas wax yar aan ku hakado bulshaweynta caalamka ay sheegayaan waa kuwa ay ayagu ka haystaan baasaboorada ogow burcada kuwa nala dhasho soo diray iska dhaaf kuwa naloo soo kiraystay kuwa ay maxay ahayd toonay ay ka haystaan wadamada ay sharciyada ka haystaan waa America waa Denmark waa UK waa maxay tahay Holland Netherlands waa Finland oo naagta kale u malayhaa inay joogto waa Canada meesha kuwan wax soo kiraystay iyo kuwa la kiraystaba meesha baasaboorka ka haystaba walaashay lagu eedeeya si shabaab ay u disho waa 2 attempted murder oo shabaab ay ku disho 2 attempted reasons laba sababood oo walaashay ku disho al-shabaab ay loo sameeyay saddexaad maxaa la dhahay saddexaad waxaa la being part of human trafficking ring especially child trafficking waxay qayb ka tahay la yiri dadka dhoofiyo oo dadka macnaha trafficking waxaa la dhahaa human trafficking waxaa la dhahaa dadka si sharci darro loo daabulid lagu sameeyo soo meeshay joogaan mooyee meel kale la geeyo ya oo ka mid tahay oo weliba ay ka sii mid tahay especially gaar ahaan dadka carruurta xada af Soomaaliga adigu fahmaysan kaas adigu ku sheega dadka carruurta xada oo carruurta trafficking ku sameeyo si oo illegal ah okay afraad maxaa la yiri naftada qatar lagu geliyo being part of organ harvester ring waxay ka mid tahay la yiri dad organiska muhiimka ah kilida beerka indhaha kilida dadkan sheegaan laakiin organ markii lagu dado waa everywhere indhaha xataa waa organ waxa lagu sameeyaa transparent lagu sameeyaa indhaha qofka waa loo transparent karaya wadnaha sambabka beerka waxa muhiimka oo dhan organs la dhaha ya marka waa trafficking baa la yiri macnaha muqallas bay ka tahay baa la yiri muqallas bay ka tahay baa la yiri kuwaas organiska baxsanay oo ilmaha iyo child organiska baxsanay iyo youth in Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliya ku nool waxa dhahaya burcadaan iyo waxa dhahaya waxa ay soo galeen inta soo jar waana haysanaa videoyada nima gafin hatta hadday tiraan waa haysanaa videoyada qaybtan waxaan ku sharxayaa marka ay waxa soo dhan u dhacaya
still hal mar waxaa idin sheego one connection oo ah in gabadhan saddex ku aabba ah anigana ilma adeeradeeya oo dee labada yadaba walaalaheena inay ninkaan soo kiraysteen ninkaana oo burcad baan u shaqaalaysay what happened before marka maxaa hore u dhacay marka because ana aqligiina ka shaqaalaysiisid oo waxaan hadda annaga nalagu haya aniga walaashay intimidationka waa laydin dilaada madaxa layda ku dhufanaada aniga iyo caruurtayda ayada iyo qoyskayga oo dhan ee khatarta loo gelinayo naftooda ayadii khatar lagu gelinayo meel gaara aniga khatar meel gaara laygu gelinayo inkastoo aanan aaminsanayn sharciga inaana iyagu ka weynayn amaan dhimana amaano aan noolaane barti one marka maxaa dhacay fawziyas dad aabbaha fawziya dhalay waa adeerkay and my uncle iyo adeerkay daay wuxuu dhintay faarax weeliye cadow allah u naxariista wuxuu dhintay 19 daydaanan ka bixinaa ogaa marmar waxaa galaayo maragta wuxuu dhintay adeerkay faarax fawziyana ah aabbaheed wuxuu dhintay madaxii calool baa tiri aniga magacaas ma raba inaa ugu yeero cabdixakiim cismaan nuur waan rabaa soo dhawow walaale isdhegayso waan rabaa inuu dhegaysto cabsaysa male meesha wuxuu dhintay adeerkay 19 November 2008 buu dhintay wuxuu dhintay adeerkay 2 years after my dad and Farah his younger brother Musa Weheliya Cadow marka uu dhintay asaga aabahay ya adeerkay wuxuu dhintay 19 November 2008 waxa oo markaas oo ahay 2 sano kadib markii uu dhintay asaga walaalkii ka yar ahna aabahay uu ku dhintay 2006 Toronto Canada aabahay Musa Weheliya Cadow that means waxa waa adeerkay markuu dhimanayo already aabahay waa dhintay bal dhagaysta dadkaan noo soo tiraysanaya 2 of August 2009 also 22 Agosto sanadkiis 2009 maalinta koowaad ee sanadkaas ramadaankiisa bishii ramadaan oo the following year ah oo ku ah sanadkii ku xiga sanadkii adeer dhintay ama fawziya aabaheed dhintay waxaa la dilay fawziya walaalkeed oo bax gaara ah sida iyada hooyo gooni u ahaa ayaa la dilay maxamed faarax weheliye cadow sindiko walaalkay maxamed allah u naxariisto walaalkay maxamed muqdisho lagu dilay al-shabaab al-shabaab ayaa way marka ay hadda u dhahayaan marka oo loo soo abaabulaya in fiican la shaqaysto ولا محيط الشباب وحاول ما دام walaalkeedii ku aabaha ahaa ay kana weynaa ay shabaab dileen anna inay raaciyaan war ma ku celiyaa mise waad fahamteen maadaama ay walaalkood ay dileen bal dadkaas wadna ma qabaan mise ma qabaan ay dileen shabaab ay dileen inay fawziyano u gacan geliyaan shabaab dilaan sagaalkood isku soo xiraan hor dhimaaysa ilaahay ma dhihin part 2 what happened before maxaa hore u dhacay part 2 ga qaybta labaad maxaa hore u dhacay Azhar brother our brother killed in Mogadishu by al-Shabaab they want her to be killed on the same way and on same group maadaama walaalkeen uu Muqdisho ku dhintay ay shabaab dileen ay ayadana la rabeen in same way isla qaabkii loo dilo oo isla groupkii ay dilaan this is not a joke maaha wax la soo maalmaleeyay maaha wax la xaq lagu bixiyay maaha wax la isku soo toosay this is how ay xarkuhu isu haystaan way maxaa kala dhacay when fawziya dad allah u naxariistay ana my uncle Farah Weheliye Cadow died he buried in Mogadishu at the family cemetery aan qabnaa waxaan qabnaa family cemetery oo reer awoowayaashan maxay reer abootadeen Ahmed Dalfac يا عبد الله بوتجا يا فاميلي سنتر قبلنا هرواك تعالى سانكو أنا أنا مالك لك أقولين alright حسوس لي هرواك كتير مركا أفكين الصومالي اللي جاي أنا كفاميلي كان كمية أنت هكذا أيام بوتجا هذا رضا أو بدر أو أبيه إن أبياش سكوتجا أو وياش أيام كوتجا هذا كأنه وحاكود أنت قاهرة أيو كود أنت هكذا يقول قرنت هاي هذا وحاكود أنت قاهرة وحنا لقيه يا قاهرة وكل أنتي مركب وحلا جاي نوفمبر 19 marka 2008
marka waxa asaga la geeyo duugti waxa la geeyay xamar si loogu aaso familigeena samantarka oo macnaha oo leeyahay waagaa sahra calaad waxay adeertay tiri waa ogahay muhiim maaha laakiin hadda inaan inta ka sheego aynu waa ogahay qoray marka adeer halkaasaa lagu duuga waxa lagu duuga abuura as a family aan anaka gooni u leenahay oo dhan waqafa oo annaga familkeena kali loogu kala galay in wax lagu duuga oo qabuuraha xaaji dalfac la dhaho oo awoowahay xaaji dalfac abay abtiyaashis maaragtay waxay 25 November soo ma dhiman ahir soo kuma dhiman adeer macaane adeer faarax weeli caddo sindiko 25 November la wada duugay maxaa dhacay marka Fawziya abuse waxaa bilaabay startup from Fawziya abuse from her siblings started from the same day her father died. Abaheed in Fawziya la abuse maalinta anigana adeerkay dhintay ayadana abaheed aha dhintay ayay ku bilaabeen siblingskeeda. No mercy wax la qarinayo male. Iyadad abuse ku haysin ana abuse ugu haysin no mercy wax la qarinayo male. waxaadna iga dhimateen aniga oo aan iska tahay wax qariska maalinta ii cadaat inaad idinka soo kireysteen ninka gaariga saaran iyo gaangiskis what happened before marka qaybta saddexaad waa ujeedin that caused that Fawziya and her mother Shamsa Yusuf taas waxay dhalisay marka Fawziya iyo hooyada Shamsa Yusuf oo ah Fawziya bax goori maadaama ay tahay hooyada Fawziya both oo xilligaas on that time aha in USA Mareykanka joogay inay ka qayb gali waayaan funeralkii aabo Faarax Weeli Caddo ama Adeer Faarax Weeli Caddo Shamsan ay tagi weyday ninkeedii iyo aabihii gabadheeda duugtiisii ayagoo raba inay tagaan ay tagi waayaan because intimidation kaas wuxuu ahaa aniga waa ogahay but now it's not important ma aha inaan sheego wuxuu ahaa marka Fawziya sheegi doonta taas hadda u baahan haddii kalena saas laakiin intimidation waxaa la dhahaa baqdin gelin okay waxaa jira marka they are family members and close relatives who know about these events waxaan aan sheegaya oo family member oo og baa jira adeer muriidi dalfac wuu dhintay adeerkay engineer muriidi dalfac wuu dhintay wiilkiisaan maanta loo hambaleynaya hargeysa ku guursada naasir adeerkay waa aabbahay in agtidii laxmiya wuu dhintaasna allaha u naxariisto maalintaas wuxuu yidhi aniga ayaa bixinaya Fawziyaay tigidkaaga anaa bixinaya waxba ha tagin ee joog because walaaleedii waxaan jabay soo ma so either sheegis according to her either sheegis yaa kala ogaa waxaa ogaa Cabdiraxiin Ciise Cadow oo nin caan ah oo la garanayo ah oo agaasimihii hore ee Radio Muqdisho intaan aqoonina iska bar Cabdiraxiin waa walaalkeen ya weliba waa nin ay abaal weyn gashteen aabbahay iyo adeerkay Cabdiraxiin Ciise Cadow oo aan dhowr oday oo yar kala tirsano oo ina adeer ii ah hataa ina adeer deed madow ii maaha ina adeer shaqo noo ah aniga Fawziyaba maadaama uu markaas haye xilka maadaama markaas uu haye xilka Radio Muqdisho inuu agaasimo ka yahay madaxda sare Radio Muqdisho ka tirsan yahay oo Fawziya Shamsu wuxuu ku yiri waa bixi kartaa anaana kafaala qaadaya nabadgelyada leedan lama taaba karo but like it's still waa cabsadeen mana aanay qofka raba inuu yiraahdo maxaa ka khuseeyana marka ugu dambeeya uu jawaabayaan barnaamijka dhammaynaayo qaybta soo socota waxa waaye aniga sidee involved ugu noqday ilaa Fawziya iyo gabadha waa soo dhashay inkastoo isla wada dhalan laakiin habeenay iska ka xigaan isku aabba waay maahno laakiin aniga isku aabba ma nahay waay aniga aan markii involved ugu noqday me and how I involved this aniga iyo sababta aan involved ugu noqday arrintan as her cousin maadaama aan ahay adeertay and the eldest of her father's brother Musa Weeli Caddow iyo ilmihii ugu weynaa ama qofkii ugu weynaa oo u dhalay adeerkeed Musa Weeli Caddow I always care about her mar walba walaashay waan ka taxadaraa waan ka fakaraa nolosheeda because she was always talk to me weligeed way kala hadlayso wax walba
wax kasta abuse kasta everything farxadeeda everything ay walaashayga la hadlaysaa as well as she talks with the other siblings of me tobanka kale ila dhalatay iska dheh sagaal ayaa waaweyn iska dheh way la hadlaysaa and she has a confidence to contacting us waxay lahayd kalsooni ay anaga nagula xiriirto igama masayri karaan marka walaalahayga weli walaalahaygan dhahaya si kastoo aniga ii cunsuriyaa si kastoo aniga ii galaan laakiin anigu waa ka weynaay foosi waana ka dhalin badanahay maxayaayo walaalahay ya walaalahay si aynan ugu kalsoonay ilaa waa kuwa adoogiba ka caajiyay inay dugtisi ka qayb gashay ayay anaga noogu kalsoon tahay haddaanan nareer noo soo heli haddo anagoo saddex bahooda marka baxda ugu yar Caaisha la dhaha iska dhaaf way yartahay taa laakiin labada bahood oo kale on problem ka dhex taagneen problem naga dhex taagna anaga sida iyaga problem ku dhex taagan yahay oo amaniya naga dhex taagnaan ayay waxay qabtaa maaragtay courage geesinimo ay anaga nagula xiriirto walaashaale after all we are her cousins wax waliba kadib waxaan nahay ilma adeeradeed so if she has no one else apart from her other sisters from her mother's side haddii aynan qabin cid kale oo aan ka ahayn laba gabdhood oo hooyadood iyo aabahood ay dhaleen hooyadood kaligeed ay gooni usoo dhasho oo midna reer Puntland ay majarteen tahay because idinka daga waxaa qabtid aniga muhiim ii ma aha walaashay walaalaheed oo ana walaalahay noqonayo shukri oo yaala loo yaqaan oo ninku gaala ku sheegay gaal iyo wax ka daran ba asaa ahayd oo gabar reer Puntland oo majarteen ah iyo xamdi oo gabar ogaadeen oo reer Jubbaland anigu walaashay walaalaheed waa soo daday walaalahay tu Soomaalida garan wax xumaan hono dhex martay ma jirto waa gabadhii oo maalin dhaweyd soo qoray oo yoola gaala dhahay gaala ma yoola badlaaka waa gabar qurux badan oo xad qurux badan waay oo hooyadeed iyo waalidkeed iyo sanjiyadeedii dambe raacda ya ma garatay marka maadaama ay sidaas tahay aynan qabin cid kale aynan qabin annaga saasaa walaashan garab ugu noqonaa walaashan saasaa annaga garab ugu noqonaa ma walna dhihi karo annaga aan abiyuusnay sida maxamed loo dilay aan u soo kiraysanna jiis gaari saaran iyo abrad jiga fiilafeero ku sitay kuwa kale oo isgabay maxaad walaashaa ugu dooday no she is my own blood and flesh wine and I am fucking support her I will support her waa support garaynaya no one idhihi kara ma jirto macaadallaahi eeya oo aan sharciga aqoona allah iyo rasuulka furto iska day oo dadka intuu soo hagaan wasalaamu calaykum no kufaara ayaa tihiin munaafiqiin haa tihiin anaana idin sheegaay so at least it is called ugu dambayntii arrinta aan anigu samaynayo aamin ahaan ilaa beertan wuxuu ku soo siiyay anigu orta qulubiya it's called responsibility wariya mas'uuliyad ayaa la dhahaa hawsha aniga haayo mas'uuliyad ayaa la dhahaa gabadha adeerkay abshir dafa inta comment ku jirta Layla dafa abshir dafa adeerkay maxaa adeerkay waa dhintay waa ninka adeerada u jeclaa wuu dhintay adeerkay waa labadii adeer oo markaa xalana galay midna isiyo 600 adeerkay faarax weeli caddo 600 sorry adeerkay faarax weeli caddo wuxuu siiyay 200 adeerkay abshir dafa wuxuu siiyay 600 والعقتي وهو الرئيس أبي وطبعا والد تيجي أو أبي هاي هاي لكن والد تيجي هاي سيا وعن حالنا كقولة وشرب بكسامستا he was my uncle أدرك أبشر وهلي أبشر حاجة أبشر أحمد حاجة دفع بدي سوى واحد ليلة دفع لها هذا كذا كما إسكما مرجع تاجي عن هو على هو منكم حقين marka responsibility hada wiliga responsibility qaadina arinta aniga aagay responsibility ala dhaha responsibility ala dhaha waxa la dhahaa maxay ahaatay responsibility mas'uuliyad baa la yiraahdaa mas'uuliyad aan is saaray because aabahay adeerkay shalay markay noolaayeen waxay ahaayeen laba garab oo istiigsada cadawga iska xigsada oo istaageero
هدي أبي أديرك ماشي كبحين أديرك أنا قلت لك قولي لو بقسم معي إذن كنا ولا لها إذا كاد هذا هدي إذن كصدق فوزي كل على كل على هذا وإذن قرب استاجلها لكن no one can say me مع فوزي سكر بتاعته no one yeah. Can you dare to say that ما أود أنا هذا مع فوزي سكر بتاعته so now مركا I'm involved أنا قاعدة مركا involved it's why the master of gang insulted me واو سببت أو نينك كرسي قارئة كفردية عبد الحكيم عثمان نور حرت شيخ صومالي whatever name he is أو إيه عايا يعني كمان تريثن مي ضدك أنا فهم سنين وفهمه يقول هنجبان أنت مديتن مي إيه بخدين كرينايو me and my family أنا جاي قيس كذي that is why the gang members coming on live and insulted me خير وجهك فارة سببت أي أنت ويا مالان أي عيان gang members Mrs. A, Mrs. B, Mrs. C, every kind of them. They are cheating of themselves. Why so حارة Why أنا جاي عيان وسببتها. Influence يلا يقرب سميل عدل اللغة ماشي. Twist every word I say. حتى وناكل حتى twist كرينا. أنا كبر وين بره. كبر وين بره. لا حسب كذا. كبر يا وعلا. They are twisting whatever I said. انت لايف صبرا وسبب talking about me اي كفتلو قاعد يقرايا commenting crying faces اي اسغا مركو wax soo qoro oo yahanjabo ay crying faces emojis u diraya emojis oo crying faces kuma ta wajhi oo yahay u diraya you know why amina way oo doontaa waa maraya xisbuka xataa korkay kama qaadi kartid xisbuka xataa korkay kama qaadi kartid ya oo abuse posts kiisa ayaga iyo ganga masfarkada waxa ay ugu dhigayaan wasaas ugu dambeyntii the testimonies and witnesses we have marqaatiyada iyo cadaymaha aan haysano iyo marqaatiyada aan haysano we have enough evidence and witnesses some of them hold high offices from Somali government waxaan haysanaa cadaymo iyo marqaatiyo nagu filan oo dadka qaarkood ay xafiisyo maaragtay heer sare hore uga soo qabtay ama ay hadda ka hayaan dowladda Soomaaliya we have witnesses waxaan haysanaa marqaatiyo from different countries oo wadamo kala duwan ka imaaday the victims dadkii dhibanayaasha ah aan kan u tirsanay ba life soo galeen asay dhibkooda sheegan iyo kuwa aan anagu ma ogno already la hadalno oo diyaar ma ah inay hadhow ka bixiyaan marqaati the people this gang is bullies or bullying now dadkii ay dadkaan soo handaleen iyo kuwa ay handadaad ku hayaan wadan waa haysanaa so we have a case saas la ajriga dacwadeena waa diyaar wax dacwad u qalma ah haysanaa I already contacted the police begin سفيان فرع إسلا حتى البوليس كوا ولا حريرة human rights organizations كوا ولا حريرة أو international كا الله يرسل عليها فيسبوك ولا حريرة فيسبوك نقدر إثبات كوا هذا Soomaalida ayaa arki doontaan waana u ololeynaya waxayna u badan tahay in laga aqbalo oo shaqana u abuuro waliba dad Soomaali ah oo af Soomaaliga iyo Ingiriisi ku tarjuma si Facebook u ogaadaan what is going on their fucking platform Facebook si u ogaadaan waxa platformkooda lagu sameeyo in anaka nalagu dhibo Somali badanna waa laga shaqaalaysiina oo 24 hours around the clock shaqeeya markaasaan ii mahad celin doontaa and I already started to proceed my case against them waana bilaabay habsame u socodkii dacwadda ka dhanka ah dadkan barnaamijku marka maadaama uu muddo dheer socdo waxaan rabaa saacadii bar aw socdaa waxaan rabaa marka inaan conclusionkiisa soo xiro ماشا ور بدل ما باهنا وركي دق لو ما باهنا ماشا وركي أنا ماشا أنا أكو قراني ما بقريها محاورير كنا يا وركي قرانيا هاي كو رامش كان مطورايا ويسف قريسيا ويدوب موهايا يا ميلو نكبحينا الله دقا على سارة إنبوكسيرنا تلفوننا كل because marka aniga la idhaho hadad maniso joog lahayd oo xirta sheeqa iira
مسكين كجارك أكو فدية ماذا حين كاتب لها I have to take فوريا فلين ما معها Somalia واحدة شو فلين ما معها in a serious وقارته intimidation كلا بقول سمايا I am going to kill you or I would kill you on برنامج كان بلوجس السكرة معناه it is you have to take it serious and I am taking serious بقى قادنا كما روح برتانا هاي كما شرعي برتانا هاي انت انا بارتانا والله انا هلا عقب والله انا كبحي وان بيستي لعكم بحي انا بارك تكاتو سفي عني اذا استدغينا فرق كيس كيغا سوليستر ادسايا او كشقيناي او بوليسك يراعاي او iyaga la xiriira oo inta aniga gurigayga joogo shaqadayda qabsanay marsiilaga noqonaa but at the court you will face me ana barista because maxkamadaheena UK ma aha sida maxkamadaha Mareykanka ma aha dacwadana halka laga furay ka bilaabanay hatta gabadhan imaan karna witness qofka imaan karna witness video link ee lagu xiriirina video ay kula xiriiraya oo ku bixinaya marqaad furkis waa ku dili laha kelmad ah I will take it serious and now it's not just the Fawzia but it's my life he's endangering my life are you endangering ku sameynaya oo qtar kalnaya and my family life lees kana yeeli maayo no anaga mooriyaan manihin haraadi kuuga sheegay sida fiican markii leedin la hadla oo fiilo feera waa soo wada fariisatay so now I'm saying you fuck you waa ku dhirna because self defense yaa la dhahaa self defense wixii aad ku tiraahdo ama xataa ku suubso no one ku haysta male and I can prove yeah I can prove at the court self defense yaa la dhahaa self defense yaa la dhahaa because markaatidiinii oo dhan aan haya wixiina oo dhan aan haya waraya aniga ma ahi gabdhaha masaakiinta ah oo bacsanaysan dhagayso xerta shiiqa naagahan fiilo feerada gafuurada ku duubtay adaa soo shaqaalaystay dhagayso waraya this speech is about you I'm speaking you talking with you directly adaa taas kula hadlaya listen to me honey malabow imaqal dhagayso si fiican dhagayso you can't bully me you can intimidate me ima bully garay kartid ma handad kartid ima intimidate garay kartid I have a right to defend myself maanta haddaan Minnesota joogo oo wagac igu soo tiraa oo madax qaraarkiisa ku dhufto is self defense naftooda ayaan kaa badbaaday adiga shartaa saydaanul insiya adiga iyo habroojiga ku daba socdaba weligaaba nuur faarax soo baxs weligaaba Jomo Kenyatta soo baxs weligaaba Jacfar al-Numeyri soo baxs weligaaba waxa doonta soo baxs ya ana kanaga qaaday sameeyraatay you are no more than a gang master horana ku sheegay gang master at hawariya haddana haddaad joogsatay haddaadan joogsan kalama bajacliba dacwada waa socohay and you will all pay the price kulligiina waa laydinka jabay mararkiina laga jeebaa wariya mararkiina aliba baba hawiye wax ka sheegtay abda I don't care like ana hawiye ana abdala Soomaali dhalasho ay ku xisaabtanta wariya inaan ahay abgaar iyo hawiyana waa ku faanay because akhlaaqda maanta sidoo kale baa leeyahay meel naga daarad wada caayima isaaq dartiinu caayima whatever dartiinu ma caayay aniga dhul baahanta dartiinu ma caayay saaxiibo badan oo fiican qabnaa gabar dhul baahanta jirto Ingiriis ku tagan oo adiga soo waxday oo ku tiri gabadhaas aamina nabad geli maxaa ugu jawaabtay telefoonka ku soo qortay ii raadiyo qofkan waxaan gabadhu waxay tahay soo waxdan waa ii joogto qofkaas waa ii sheegay aniga aniga daraadda ku waxa oo telefoonka public ka dhigto marka ma dhul bahanta aad u sameynay wariya horana kuugu sheegay reer Soomaaliya sanaag wariya ana kaaga dhawariya Facebook ana soo saaraya marka ra'iisul wasaarihi hore Soomaaliya aan xuquuqdooda u weydiinay Facebook aan soo saaraya saada cali warsame qof ana oo ilaahay inta walaashay Allah u naxariisto oo ii mahad celinaysa oo islaamaysa Facebook aan soo saaraya islaamaysa you fucking bastard ma ku afka biro ku kan شكله كم مدحيا أنا هذا إذن دهون it's a statement from me I'm not giving a shit who you are Minnesota كنا ولا هذا يا ملك لا كنا ولا هذا يا وريا حسبك كرتيا كما قاعدك توريا
habartayna hambiya hay dhashataan ku dhaaf hooyada aniga ay dhashay hambiya ay dhashay waxa aan kaa sheego oo dhan aflagaada ma hawriya ana have entitled waxaan xaq u leeyahay on right iskaygu yahay inaan iska kaa difaaca adiga jartaan soo soco wariya soo soco marka soo soco halkeen intaas ku dhamaaday asxaabay aniga ay soo noqday marka statementigooda waa sheegay waa idin fahamsiiyey qofka rabta inay dib u daawato youtube-kaga ha ka daawato no one loo joojinayo male laakiin codsiyaa wataa gabar kasta oo la abuse oo baqaysa nafteeda ayada u baqaysa please contact me ila soo xiriir aniga contactigayga emailkayga telefoonkayga whatsappka kulli meeshaan kusoo qoraa aniga ila soo xiriir أنا دعوة هذا كذلك أقدر يا مرة الله مركي دعوة بلا بطلع هذا المايا هذا الوحو كقاضي يا مرة هذا أنا وحول له وأكوالا مريا أنا قاعد موالي موالي نوع حاجة أو كله يكون أكيد من استوى ولا ترى موالي كلام وريا كبرنا لا تيا وحلا برا أقول له جد لا أيامه أبهاينا وحي برا أقول أكثر بدل إيجا بشيء ولا محو أبهاي لعجة بشيء محو أبهاي لعجة بشيء محو أبهاي لعجة بشيء برايفت إديوكيشن محو لغة لعجة بشيء محو كمبيوتر لعجة بشيء محو هارسر إيجا ديجا إيه أنت أنا جو إسكت دربا وريا أنت أنا جو إسكت دربا ومركان سوينا أنا جو قبضة طيبة سبب أو قبضة أول شيء وحي برينا هو يدي أو نور الله إلى أحد غير رئيسية عمر جري عافى ما عبادة سبحان الله كل عمر جاده فاضمه هو يدي فاضمه يا أباه المسوي هني عدو يا أيد الآن مثلا وريا وحي برينا يوجد ذلك نوع حاجة كله يحمر ترى نوع حاجة كله إن أنا أدوك يقول آخرنا عمل كي قال لك يا قفل بسوء عمل كسوء تقال وزيكو سهرت هو إذا نلا شو سفي عندك الأفراد وزي اسمه سيستم ما أنا إذا كجهي بس أنا إذا ما الله سوى كل الهدانا أما سوى عيتم الهدانا I don't care you are part of this case that can دعوينا يا محمد دعينا الكميتين I'm bullshit yes that can دعوينا يا محمد دعينا الكميتين because إذا كأي hitman إيه إنك ديسكا إيه بعديس إنك سوى كريستين هر نوع بيحميسين خاص نوع بيحميسين جسنا ماله لوق بولا علينا ماله أتكو جنبيسين ماله هذا كيني وهايا على كيني وهايا صدق أنا قال أنت كل شيء ميسس أم أتكلم هايا أتلاقيها فوزية فرح أمينة كريم أتفوزية نكذا كل هذا أتلاقيها دي أنا محاوجة جرو أمينو أتكلم هايا وأنا عبودين عبتيننا فيها بدل ما تأخذه بشبه الله إيه ورجوا من هذا يسقط درنا ما نأخذه وأنا عبودين وريا أنا وإيه كلا سارنتين سهرة وأشياء أفر وماما لا يعني وحسمين فوزية لكن different idea قبتها وأنا قبل كرتا أنا جاي فوزية حتى ولا لماذا لقد حس سد ديمقراطية ولا أكون عنا وريا اسمه قصبنا فوزية مركي لايف سوق ليس فوزية لايف سوق الواحد استحمله فوزية حتى أقول هيدا وحيابها أي جماعة سنتها إلى السماء أنا هو اللي كاي وريا أنا تنكي يدي هيدا أنت لايف سوق شيء اسكو محيا بيسانو متى هذا إيه حبستين مركا عرفتين كم أنتم حمانتي سادنا ما تشتري maxaa tiraysan naagaha gaangiska ah way wada baloogaan aniga waxay baloogaan ma taqaan waa cabsaayaan but you let me I ogeysiyo I already have 3 other different Facebook game ka ciyaaraysina ciyaaray and I know whatever fucking you post wax kasta aad soo post garaysina wariyaa waa ogahay waana iskaga keen filanahay hadalka soo socda wuxuu ku socdaa beesha hawiye oo aniga raba anaga hawiye ahaan noo taageeraysa aasata beesha afgaad ama mudulad rab ama hiraab oo dhan oo habar ku jirto wariyaa Soomaali qabiil ku kala tagtay kana xishoon maayo markay aniga naag fiila feerale inta meel isoo fariisata naaga kale oo iyada ku cid ay comment igu caayaan anigana ka xishoon maayo inaan beesheedo waa idin la hadlayaa si fiican ii dhageysta right now أنت وحي ربان تذكر أنا قبيلة وبدلان قبيلة نمها ريسك أن ما أنت إذا كذا شيء كيوان هسه قبلة وتسلسل نقول مات
هكيا لنا هنا كأقبلنا أنا أرنت قبيلتها بليز أم بليز أنا كؤادة أنا آمنها كؤادة اللي أنت كتان بأي فريستا قران كمارك بهالكيس أي فريستا dadkan maxaan ku waxay arkay moral sabad aniga isi cheer me up because iyaga ganki jar up suday waay aniga i dhiiri galiya fiican dhiiri galiya but I don't need ina aniga ka dagaalantaan ina igu baahan right now ma baahan hadday tii alla timaa aan idin soo baahdo ana idin soo habar wacay ariya hawiya ariya maxay toon hiraab ariya abgaar cusmaan ariya muduloon hiraab ana dhahay ariya madarka hiraab ariya martiila hiraab ana dhahay ariya maxamuud hiraab أنا هاي now ما بهنين because قبيل واحد أنا يرباني قبيل كذا قام عشان اللي قلنا هذا والله بالله دخلت أنا كنا لا دال أيا لا أركب باص كذا أستردي ها محيي هاي تانا دتك شب دتك والرئيس والله بالله دتك خيال هذا كان رئيسين أنت أنا نايس كوسل بدنا يا أنت كلام كوسل بدنا نار كذا جيح معي أنا إلى الله تكاجي هاي بيسمايا من حارف ودحفني إنك وجهك في الفرق كلها إن مثل وجهك تكريه تكري أنا خبط أنا بس أكرروك وجهك أنا no ما كاجي هاي بيسنا أنا إلى الله تمايا هذا استلينا هذا استلينا you still have maybe have a one chance وحلا جاي أبا إنه إذا كير هذا دمبي لكن مرة ما تكيس وريا مسوي لي عدوات أنت أسانا إيه كين كاني أسا فرح وهلي لا دش that's why أنا كاسل كي يكون قتل أحسن قبضنا ولا شيء أنا أكريسيسين برعد أنا برعد إيش أكريسيسين ميا no over my dead body وأنا أنتي تاس هذا عندي ثلاث شهور نما كل ما نوريا طبعا سنة كهر أنا ما دحيق مرعد كنت إلا هذا أنا مرعد سأفش الأمة دي وريا واتكر فنتي ثاني واتكر فنتي dadka aan ka dhashan saasaan leh soo seexis meeshaad ka dhalateen ay ka dhalato waryaa fulsiya whether you like it or not madaxayga inta ciidda ka sarreeyo nafawsiyo qof ciili kara male waryaa idinkana maqla kuwa ila dhasho xataa igu aabbaha qaarkood laga yaabo inay ra'yi kala qabaan ha maqleen waryaa responsibility aa la dhahaa mas-uuliyad ayaan qaadayaa waryaa بوسكي أباهي نسوي لي عدو بان كنت الله ونحرستا صادم أنا المهوي يا بقر اسكو ما أنا فعلا الفريسة ما سبينك نو فريسة ناي قلتينا قرب كذا أهانا حرته بلون ولا يسكعلنا أي في لفيرة ولا يسكعلنا أي وجهي جاكن ولا يسكعلنا أي الكمذا ولا يسكعلنا أي مسكينسو وحي ساقرت هذا ترتو ولا يسكعلنا كل ذي وان وأكتين إنت كذا وأكتين أنا أغاني سويا You fucking bastards. أصحابتي excuse my language وكحمهاي لوقتي لكن وقصب so I had to say this وريا رجعني ما نكون إنسان رجعني ما أنا مش كنت أسكوجها وما هتسنتين شير قرايا هل كان لقى تريما يوتيوب كنا ولا قرينا قف قصة والصحفية أما يوتيوبر برنامج كان وأفسحنها إنه قاتل because وحان ربا as much as I can أضطر إنه يفهمنا ربا أنت بس يا أوتي أفضل بقى يوتيوبر برنامج كان ودك سكتة وأنا قاعدة كتا لكن 1 hour كبعدها قاعدة كتا بس مرة هوري حان كديكا اللي مني أنا بس أيانا قاعدة ناي marka aniga qaata ka bacda qaada laakiin idin dacweynayo accountkiina ma xiraay waana qaada kartin laakiin hal sharuud kama bedeli kartiin mawduuca uu ku saabsan yahay haddaad mawduuca uu ku saabsan yahay qofka ka bedasho oo youtube ku arko youtube-kiisu waa cadaa istreega u dira